waayo habeen dambe hadduu ilaahay idmo isniinta waxyaaba yaab leh ay kusoo kordhi doona dagaalka marka dadka haddaa tahay dadka shaaxa jecel tarmuus intaas la eg oo 5 xabo ah ama xitaa 10 xabo soo shub annaga markay noo tahay 8 fiidnimo dabcan idinkana dadka bariga Afrika ee u tahay sala subax intaad u soo kicin wax yar ka hor adiga xilligaas horta waxa ku eg laba qodob oo waaweyn ayaa dhici doona meel ku qoro waxa ku eg horta xilligii ninka odaga Trump uu qabsaday 48 saac ahayd habeen dambe 8 isniinta idinkana marka idinta talaadada sala subaxii ay horta xilligii ama waqtigii uu qabsaday ee ku eg tahay Iran wayba soo jawaabtay waxay tiri war adeeg ku taala maxaa dhici doono si fiican u sharxi doonaa sidoo kale cidii xuuti ahayd oo ayadana Trump markuu waqti qabsaday idina waqti qabsatay isniinta dagaalka soo gala ay ayadana taagtay iyo sheekadan istaraatiijiga cajiibka ah ee sababta xuutiyiinta dib loogu dhigay iyo gantaaladan cusub oo Iran hadda ee la soo baxday oo dunida waxa soo hadlay qoladan IAEA warkooda idin wada qoladan IAEA oo controlka ku haysay Iran iyo bacriminta iyo qof walba wuxuu leeyahay waxaan gantaaladan cusub ee ridada dheer ee London gaarayo Ingiriiska maanta uu soo hadlay dabcan waa maqasheen oo Ingiriis wuxuu taagan yahayba Iran ama dhaantaba gantaal wax lagu la dagaalamo soo ridno ma heeno maanta hadii laba xab lagu rido waa dhanka London dadkii oo eegay lagu dul dhacaa xish waaye qodobkaas ay dambe aku bilaabo qodobka habeen dambe haduu ilaahay idmo fiidnimada Trump waqtiga uu qabsaday iyo sababta uu qabsaday horta waxay ahayd marinkii asaga ahaa ee Hormuz ee caan baxay ee shidaalku uu maro sidoo kale maadooyinkan ayagana dhirta iyo beeraha lagu bacrimiyo fertilizerka uu maro adiga waxyaabo fara badan maro aniga shidaal iyo saliid leh maqalna mogtaa waxa meesha maro 5 iyo 6 way ka badan yihiin oo critical ah oo adduunka dhan u baahan yahay waaye Trump horta dabcan been loo noqday beentiisana dadkii dhan bartay sababta wuxuu yiri mataqaan hadda markuu dagaalka 2 maalin marayay wuxuu dhahay marag Hormuz waa la wareegna anaga furnay furaya soo mara Trump dhahaya uu furaya soo mara 2 maalin kadib haddana wuxuu yiri xoog ku fura ciidamada dira haddana 4 maalin kadib uu soo kala wareegay wuxuu taagayahay Iran ay fur waa lagu bariyaa hadda marka horta sababta hadda isweydiinaysid oo ninka muxuu saacad u qabsaday asleedahay wax walba uu sameeyay markab gay jinni gay kan gay hebel gay aaga waa la furi waay ilaan Iran muddo 45 sano iyo ka badan ay isku diyaarinaysay meeshaas haddii arrinkan uu dhaco lagu soo duulo sidii kham ay u siin lahayd wax alaaliya wixii la sameeyna ay uga hortagi lahayd wayna ku guuleysatay Iran dabcan boqolkiiba way ku guuleysatay meesha waa xirtay waa qam haddana kaaga sii daranay wayba ka lacagaysanaysaaba maraakiibta meesha marto iyada baad ka qaadayso ama canshuurta way gudbayaan marka bahashu wayba ka sii taajirtay Iran oo lacag fara badan aad meesha ka helaysaa ninka marka Trump arrinkii intuu fiiriyay adduunka dhan ku soo jeestay oo taaganiyo adiga wixii dagaalna waa qaaday waxa qabanaysid mala meesha aadayna way xiran tahay maxaa hadda noo soo kordhisay Trump hal wax aad noo soo kordhisay oo nuxur leh bal noo sheeg waxa dumiyay waxa qarxiisha waxa warba ah dagaal waxa ku guuleysto ninkii badaha furo ninkii meelaha shidaalka tartiib ay u maraan ninkaas la dhigraa ugu guuleystay Iran ma guuleystay bas adaa guuleystay waa bad ninka marka xanaaqa ka keenay 48 saac uu qabsaday Trump wuxuu yiri marka haddaa sameyn weysaan ama afur weysaan meeshaas jawaabta Iran oo ay dambayso waxaan burburinaa oo duulaan aan ku qaadaa Trump dhahaya xarumaha laga dhaliyo korontada wax loo yaqaan power plant salaanada maapkana u jeedaan Tehran ee u dhowdahay magaalada Tehran u dhowaay ayaan burburinaa taagan taasoo ka dhigayso in dadkii taasoo ka dhigayso in Mareykanka uu weerarayo meesha dadka ee korontada ka helaan dabcan markii xeerarka caalamiga la fiiriyo waa wax qalad ah in dadka meesha korontada ka helaan oo korontada hadda nalkaan inay ugu shidan iyo meesha dadka ay ka helayaan burburna taagay taasoo micnaheedu uu yahay tabar kale waa la waayay oo ay ahayn in Iran goobaha shacabka infrastructure caadiga ahaa la weeraro waaya Trump saasuu leeyahay wuxuu leeyahay mid ugu weyn aan ku bilaabaa duqeynta
kuwa kale ku xijinaa way sii soconaysaa ciddii iiraan ahayd marka way soo jawaabtay horta waxay tiri aniga handadaad iyo booto hormuus ku fur ma soconayso waa kow waa labee jawaaba ka bixinaa iiraan waxay samaynaysa maalmahan oo dhan hadduu ninkan afka ka hadlo jawaab afkii usoo dhiibaysa hadduu ficil sameeyo ficilay qaadaysa ku cilda meeshaas maalmo saddexdii isbuuc dagaalku uu socday hadduu ninka afka ka hadlo afkay uga soo jawaabayeen hadduu ficil qaado ficilay qaadayeen kulli mar alaali markay jugta ayada ay ku socoto iiraan ayadana jugtay samaynaysa sidaa ogtihiin marka hadda waxay tiri iiraan habeen dambe markii saacadda aa qabsatay trumbo ee soo dhammaato maxay tiri igu soo celi waxaan weeraraa powerbalan sooma dhihin anigana dhulkaanoo dhan hadda jiddo iyo riyaad iyo dooxa iyo dubai iyo abudabi iyo waxaanoo dhan iyo kuwait city kulli weli nallaa ka shidan oo dadka meesha degan weli guriga koronta ugu jirto iiraan marka waxay qariiradaas fiiri iiraan waxay leedahay anigana zama ka dhiga waxaan aagaan dhan dadkan carabta ah igaag dhowow dhan iyo adiga maraykanoo wax alaala wixii meesha ku leedahay kulli zam soo qaad adiga weerarka soo qaad anna waa soo qaadaa أنا هي وسوق هذا قنية كافش إيران استراتيجية صارت معلومة عياريس تحس أيضا إيجرتو أو هذا ساعد الوسي سقايو وأنا قلت كي الشاحي هبين ما عبي هذا دبكو إيشي سارين يا باش حيسة يلا صاي عدي إيران هاد وحلا صباح لي قنت حاله إلا هذا ماشي قصة ماشي ماشي أكيد كنت ما دوين كان وحي يودن لجرين لا ما تصل عن وحال لأنك أي أها كورميرا يهوب كنيوكلير كإيقاب بعرم إيران وعي تاجين هين بقى ما بقى أوجين بقى أنا وحنا هذا إيران كنت على ذا أساس لا صباح هذا أو إنجليز كجارايو أو يوروب نن جارايو أنا جا وحنا نودك سنين إن أي سن هي سنين إيران سو أيش مركز ويدين تمضنا وحتى محاكلة وقرصن وحروا لك سوق بكبيو إيران عقلي استعماش لقال كان qaybtii hore drones ku bilowday markii ayada la weeraray drones iigan taalado kuwan ballistic ah oo il kor markii loo boodo gaarayo Tel Aviv iyo meelahaas oo sheekadu ku bilowday maalmay waday Mareykan iyo Israa'iil oo loo benguuri waxay isdhaheen bas waa sheekada waa kasii dhamaanaysa haddana bahala dheer la soo baxday oo gaarayo Greega iyo Turkiga iyo balaayo waa la yaabay haddana jugtu way socotay haddana waxay isdhaheen بس هو باشا أنت هسه كأكتاهي وحكي لما هستان حضرنا شلي وعلى صوب بعضي كو كلو بيل دير جاري بركز عايز وديت بودات قبرت بيلتري بات أفير رابعتها محاحيجو إلا صبيح دونتا محاحيجو وحسة الرات الدقيقة عيو مس بام نيوكليري بلايا ما أخرسن تاس وتاس إدي حوتي جهد قريرة إلى فيري إدي حوتي جهد دجال سوق جليس شكل حيس اللي حيس الزائدة يلون دونتا معي الحوتي ما دام هذا إيران سجولة وحرتي مريك هرموس مريك كان كلا أسجنا عربتا قارت الله قبنا باول مندب والصومالي اليمن وده حصل أي جنا حوتين توحي تاجين بروح كتم بيو دول كاسة حرينا دول كاس وحصامر تركي وحصامر إسرائيل وحصامر مريكان أدون كيو مرة لبضان ميل مرك هدي لب للسيساس لو دوجيو أود dhulkaas ilaa Asia ilaa Europe waxa gacanta ku hayo Xuuti ee Iran ay gacanta ku hayo war waxa ku iri soo diyaarsan tarmuuskaaga shaah awal